السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka kan cusub uu inoo soo gudbinayo aroorka channel. barnaamijka kan isaga ah ee maanta wuxuu ku saabsan yahay golaha shacabka Soomaaliyeed ama baarlamaanka Soomaaliyeed, iyadoo aan ogsoonnahay inuu dhaco had iyo jeer shirar waxqabad oo dhextaala oo muddadiiba mar gaadhsiisan oo uu qabsooma run ahaantii golaha shacabka ama baarlamaanka. run ahaantii kalfadhigii ugu dambeeyey ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo la isugu yimi maalmihii tegey ka hor, run ahaantii waxaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa shirarkii ugu xumaa ama ugu qaab darnaa ee u qabsooma muddo dheer golaha shacabka intii lasoo dhaafay, taasoo ay ugu wacan tahay daawade iyadoo uu shirkaas isaga ah ama kulankaas isaga ah ahaa mid ku suntan hagardaamo iyo run ahaantii intaaba wax ka sarreeya oo lagu tilmaami karo khiyaano qaran. waa saas weeyaan, run ahaantii waa khiyaano qaran, taasoo ay ugu wacan tahay daawade iyadoo loo igmaday golaha shacabka inuu ahaado mid run ahaantii ay shaqadiisu tahay sharci dejin, balse uu yahay golahaasu sida la ogsoon yahay mid ka caagan arrimaha fulinta. balse nasiib darro sida xaalku ama arrinku ku dambeeyey halkaas iyada ah waxaan ka akhrisannay kulankaas isaga ah ee tilmaaman in golahaas isaga ah uu macnihii gacmaha la galay ama lugaha la galay arrimihii fulinta oo uu macnihii dhaafay arrinkii isaga ah ee loo igmaday oo ah sharci dejinta. taasuna run ahaantii waa mid lagu tilmaami karo inay tahay nasiib darro. kulankaas isaga ee tilmaaman ee golaha shacabku isugu yimi oo ay ahayd inay ka wada hadlaan tusaale ahaan arrin motion isaga ah oo la rabay in la hor keeno golahaas isaga ah, balse ee halkaas iyada ah ka dhacday saan tilmaamay hagardaamo iyo khiyaano, taasoo ugu wacneed in macnihii shirkaas isaga ah ama kulankaas isaga ah u dhici waayo qaabkii looga baahnaa inuu halkaas uga fulo. hagardaamadii halkaas iyada daawade ka dhacday waa mid macnihii aan oraah ku koobnayn se bal ay tahay mid macnihii loo hayo caddaymo ku filan, taasoo ay dhacday in qalabkii warbaahinta iyo mikrofoonnadii ay isticmaalayeen adeegsanayeen golaha baarlamaanku, guddiga baarlamaanka ma golaha shacabka iyagoo furan, qalabkiiyo furan oo aan la xidhin ayaa macnihii halkaas iyada uu ka dhacay wada hadal dhex maray guddoonkii golaha shacabka oo aadan madoobe ah iyo ku-xigeenkii guddoonka oo ah Sacdiyo.
erayadii iyo hadalkii iyo oraahdii dhex martayna run ahaantii waa laga dheragsan yahay oo waxay ku dambaysay inay micnihii meel fagaaro ah oo saaxadda guud ee warbaahineed iyo bulsho ee soomaaliyeed uu arrinkii u soo baxo uuna arrinku intaas kaliya aanu ku ekeen balse la filanayo inuu meelo kalena gaadho oo ka baxsan run ahaantii bulshada soomaaliyeed hagaardaamadaas iyada ah ama khiyaanadaas iyada ah run ahaantii ay ku kaceen guddoonkii golaha shacabka guddoomiyihii iyo ku-xigeenkiisii run ahaantii waxay tilmaamaysaa daawade in labadaa mas-uul ee iyaga ay tilmaaman aanay ka baxsaneen macnihii loolanka ama xaaladda loolanka siyaasadeed ee ka jirta soomaaliya guud ahaan gaar ahaanna gudaha golaha shacabka oo ay noqdeen laba mas-uul oo ku dambeeyey inay macnihii faragashadaan oo ka qayb galaan howlo aan golaha shacbigu ama dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya aanu u igmadin oo halkaas ay ku weeraraan qaar ka mid ah xubnihii golaha shacabka iyadoo aan tusaale halkaas iyada ah ka daawanaynay ka maqlaynay iyadoo la hagardaameynayo xildhibaanad ka mid a golaha shacabka oo lagu magacaabo sareedo iyo aflagaadadii guddoonka golaha shacabka aadan madoobe oo ku tilmaamaya xildhibaanadaas iyada ay ku magacaaban sareedo inay tahay qof edeb daran isagoo halkaas ka falcelinaya ama ka jawaabaya hadal ay u soo gudbisay guddoon ku-xigeenkii golaha shacabka sacdiyo guud ahaanna hadalladii ee isdhaafsadeen labadaas mas-uul oo iyaga ah ee ahayd hadalloo run ahaantii ka baxsan shuruucda u degsan dastuurka iyo golaha shacabka iyo anshaxa guud iyo guud ahaanba danta guud ee soomaaliya halkaasna laga akhrisan karo daawade in arrimo intaas ka baaxad weyn oo ka mug weyn oo hagardaamooyina iyo loolan siyaasadeed ay ka qayb galaan guddoonka baarlamaanku laguna tilmaami karo guddoonka baarlamaanku inaanay ahayn hay-ad sharci dejin oo u dhaxayn karta bulshada soomaaliyeed balse ay yihiin shakhsiyaad siyaasadeed oo qayb ka ah loolan siyaasadeed oo had iyo jeer dhex mara madaxda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo xubnaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya run ahaantiina qaabdhaqanka isaga ah ee noocaasa ihi sii socodkiisu u yahay mid dhaawici kara waxyeelo weynna u gaadhsiin kara sooyaalka siyaasadeed ee soomaaliyeed
horena halkaa laga akhrisan karo inuu habdhaqankaas isaga ahaa mid soo jireyna oo waxyeelo badan run ahaantii u geystay sooyaalkii siyaasadeed ee soomaaliyeed ee lasoo dhaafay. saas awgeedna ay ku habboon tahay daawade in habdhaqankaas isaga ee guracan ee ku salaysan hagardaamada iyo waxyeelada iyo ka leexashada shuruucda iyo qawaaniinta dalka u degsan gaar ahaan golaha shacabka ay tahay lama huraan in la soo afjaro si loo heli lahaa nolol siyaasadeed oo hufan oo ka caagan hagaardaamooyinka iyo waxyeelooyinka halkaas iyada ka jirta. wixii iyo arrinkaas isaga ee ka dhacay golaha shacabka daawade waa mid run ahaantii fiirada marka loo fiirsado si quto dheer arrinka loo akhrinsado la oran karo inaanu ahayn arrin ku kooban golaha sharci dejinta balse uu yahay mid gaadhsiisan dhamma ahaan hay-adaha iyo mu'asasaadka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya sida golaha wasiirada, sida hay-adaha amniga, hay-adaha horseedka iyo ciidanka, laga soo gaadho ilaa xafiiska madaxtooyada. saas awgeed loo baahan yahay daawade in hay-adahaas iyada iyo shakhsiyaadka matalaya ay ku ekaadaan dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo sharciyada hay-adaha kala duwan u degsan laga soo bilaabo madaxtooye iyo wixii ka hooseeya oo halkaas laga caaganaado dhaqamada loolanka siyaasadeed iyo hagardaamada kuwaasoo run ahaantii noqday sida aan muraayadaas iyada ka daawan karno kana akhrisan karno inay yihiin arrimo hor istaagay caqabadna ku noqday jiritaankii jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo socoshada geedi socodka siyaasadeed ee ku habboonaa inay yeelato jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya loona baahan yahay run ahaantii gunaanadkii in dhacdadaas iyada ee ka dhex dhacday barlamaankii jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayna ku kaceen guddoonkii golaha shacabka inaanay saas ku dhammaan oo saas loo ilaawin loona baahan yahay in laga daba tago oo run ahaantii tallaabooyin cad laga qaado guddoonkii golaha shacabka ee ku kacay falkaas isaga si halkaas iyada aan arrinkaas ugu soo noqnoqon mar labaad loona soo afjaro habdhaqankaas siyaasadeed ee guracan ee ku salaysan salkana ku haya hagardaamada. daawadee dhegeysta waa anigoo khaalid xasan yuusuf oo idin leh intaan barnaamijka kan mid lamida oo kale ku kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.